الله الرحمن الرحيم. شريعنا ولا تشرع إسعافيتا بينهم تنبلون ورمتوه مرقش الصبح إلى اللح بش أغسط لكم ولا يعطل بينهم تنبلون أواشر ولا تشرع يسعافنا كل ورتم مغالبة مرقشه صبح لي إلى اللح بش أغسط لكم ولا يعطل شركة ولا يقف في مولى عن علمين أياد بس أي شركة ولا يقف في مرقشه صبح ولا باطن كبش ولا بعد لكم ولا باطن كاسو ليبوا أني قرشنا الشريعة باش سويت معه وأيجاني الآن دينك باش شركة ولا تشتري ساعتها وهكذا قد الرجال سيراء شنكل أوقف أفتنا ولا شيء وكذا يريد غيرها كيكون برشلة وأيجاني الآن دينك علماء دينك وقاشة سياسية جماعتها غيرها سراكيش إيرمادا بليريا حيانك يقرب الجوت باشا مدنيا وحاسبه كل شركة اللي عشريني مركز شرف لكل سبورة سوماليا بيت وتبر تسالين مقلة دبوا من إيش التاريخات أو فن سؤال الجواب وافية ولو سو دبوا وعدي هذا الجيري ومرتو كسونا حتى يدمر با شركة بيشو صاروا ورمتوه في كورم ولا بلا شو صاروا arrimaha amriga dowladda muddo waxay ka dalbaysaa dowladda federaalka dowlad goboleedyada iyo amisom in si degdeg ah looga horeeyo deegaanada beesha oo ay muddo dheer ku habsadeen nabadgudka beesha muddo waxay si mug leh gacan uga geysanaysaa xoreynta deegaanadeeda iyo in la gaarsiiyo maamul dowladeed shirku wuxuu ka digayaa in la soo geliyo dalka ciidamo shisheeye oo aan sharciyad haysan kana tirsanayn amisom beesha oo caan ku ah taariikhna ku leh dhisidda taageeridda la shaqaynta iyo garabsiinta dowladnimada ayaa xilligan lagu jiro waxay cod dheer ku sheegaysaa jiritaanka tacadiyo iyo xadgudubyo culus oo ka jira guud ahaan hay-adaha dowladda dhexdeeda gaar ahaanna hay-adaha amniga garsoorka waxayna ku baaqaysaa in sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto xaaladahaas taagan arrimaha siyaasadda shirka wadatashiga wuxuu soo dhaweynayaa go-aanka baarlamanka oo qeexaya in gobolka banaadir ku yeeshay 13 xubnood oo matalaad ah aqalka sare taasoo lagu dhaqangelinayo inay ka mid noqdaan baarlamaanka 11aad ee 2021 waxaan ka codsanaynaa in loo dhammaystiro wixii ka dhiman oo habraac sharci ah waxayna beesha u mahadcelinaysaa dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamanka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka banaadir iyo cid kastoo gacan ka geysatay arrintaas dowladda muddo waxay u soo jeedinaysaa hay-adaha dowladda ay khusayso inay dardar geliyaan howlaha la xiriira dhammaystirka nidaamka caasimadda si waafaqsan soo jeedinta labada guddi ee arrimaha dastuurka ee baarlamaanka sagaalaad kaasoo dhigayay in muqdisho tahay caasimadda dalka oo ah dowlad goboleed matalaad ku leh labada aqal ee baarlamaanka dabagalka hawshan waxaa u xilsaaran goobaha horumarinta danaha muddo beesha muddo waxay gobol u fududaysaa bulshada Soomaaliyeed si ay uga wada tashadaan degdejinta dhismaha dowlad goboleedka gobolka banaadir dabagalka fulinta gobolahaas wada tashiga ah wuxuu shirka u xilsaaray dowladka iyo golaha horumarinta danaha muddo beesha muddo waxay ugu baaqaysaa dowladda federaalka in doorashooyinka qaran ee 2020 ay noqdaan wadar ogol suuragal ah oo ku qabsooma waqtigooda beesha waxay ka digaysaa in muddo kororsi xilliga dowladnimada uu waddanka gelin karo qalalaaso siyaasadeed iyo mid dastuur taasoo dhaawacaysa sharciyadda dowladnimada Soomaaliya shirweynuhu wuxuu ka dalbayaa dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo xisbiyada siyaasaddu in ay dhowraan kuna dhaqmaan ilaaliyaan dastuurka iyo shuruucda dalka una turan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladnimadiisa
arrimaha bulshada. shirku wuxuu soo dhaweynayaa isla markaasuu xoojinayaa wadajirka iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. shirku wuxuu isku raacay in la dhiso golaha horumarinta danaha beelaha Midowday. shirku wuxuu ku baaqayaa in si shuruud la'aan ah loo joojiyo colaadaha ka jira deegaanada ay degto beesha si dhab ahna loo xalliyo wixii sababay colaadahaas si guudna loo joojiyo colaadaha ka jira Soomaaliya. shirku wuxuu go'aamiyey in la sameeyo dib u heshiisiin sal ballaaran lagana sameeyo dhammaan deegaanada ay degto beelaha Midowday si loo gaaro iscafin iyo iskaashi guud. waxayna ugu baaqaysaa beelaha hawiye gobol dib u heshiisiineed. sidoo kale waxay ku baaqaysaa dib u heshiisiin Soomaaliyeed oo dhab ah ayadoo ay gudasha dib u heshiisiinta ay u fududeyso beelaha Soomaaliyeed maadaama ay tahay gudashii dalka. shirku wuxuu soo dhaweynayaa sahminta garoonka cusub ee diyaaradaha ee deegaanka Hawaii Garab Cad wuxuuna rajeynayaa in dhaqso loo dhagax dhigo. beesha Midowday waxay bogaadinaysaa dhammaan shirarka nabadeed ay gaareen beelaha Soomaaliyeed. sidoo kale waxay soo dhaweynaysaa wadahadallada dib ugu bilowday Soomaaliya iyo Somaliland. barnaamij iyo mahadnaq. beesha waxay mahad ballaaran u soo jeedinaysaa dhammaan intii gacan ka geysatay qarsoomidda shirweynaha wada tashiga ee beelaha Midowday. beesha waxay u mahad celinaysaa dowladda dhaqanka guddiga qaranqaadada iyo culimada diinka si gaar ahna mawlaca macluumiin oo suurtageliyay qarsoomidda shirkan. beesha waxay si gaar ah ugu mahad celinaysaa gurba joogta iyo ganacsatada Midowday oo suurageliyay qarsoomidda shirka wada tashiga. ugu dambeyn waxay beesha u mahad celinaysaa beesha caalamka oo qayb weyn ka qaadatay gacansiinta ummadda Soomaaliyeed waqtiyada adkaa ay soo martay. waxay ku bogaadinaysaa inay sii joogteeyaan gacansiinta ummadda Soomaaliyeed. wabillahi tawfiiq. dhamaad.